السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود وهذا channel كنا سيال كميديا قطبين واوين ما انتو حاي كليهين داني يبش عالم كو اسلا غاري قطب لحريرة دروشوين كسوماليا نانكاسي ورك عالم كنا وحا كميدا نتنياهو اوسيي قوان كماريكان كا ايكو هدان كدرسسة اسرائيل دوكا دانتا غالبادة ترام وشاعيي ان قوان حساسي هالغياب ان ماريكان كوكو قادو الشينه qodobada soo faahfaahsan ayaa ku maqal doontaan magacii waa maslaxa nasiifur haddaan wada subtaa channel kan subscribe noo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan haatana kusoo dhawaada warkii faahfaahsan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa shalay kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya kulankan ayaa waxa uu dhacay qaab muuqaal online ah ayaa mas'uuliyiinta beesha caalamka ka socotay waxaa ka mid ahaa ranjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Wan ereyga midowga Yurub ee Soomaaliya safiirada wadamada UK Norway Sweden Germany iyo kilada iyo madaxda ururada daneeya arrimaha Soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda COVID-19 ee maamulka Puntland amniga doorashooyinka Soomaaliya xiriirka dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaa sidoo kale kulankan diiradda lagu saarayay doorashada Soomaaliya isla markaana lagu adkeeyay in xilligeeda ay ku dhacdo taasoo beesha caalamka ay sheegtay inay muhiim tahay Puntland ayaa hore u qaadacday sharciga doorashooyinka ee la ansixiyay waxayna sheegtay inaysan ka qaybgal doonin doorashada haddii aan la tixgelin xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ogolaansho siiyay Israa'iil si ay u goosato oo ay ugu darsato qayb ka mid ah dhulka la haysto ee daanta galbeed waxaana sidaas warisay wakaaladda wararka Anadolu xogaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Arbacadii Israa'iil ku tagay booqasho hal maalin ah isagoo la kulmay Netanyahu heshiiska nabadda bariga dhexe oo 28 Janaayo uu shaaciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Qudus oo qoonsanaya caasimada aan la kala qaybin ee Israa'iil wuxuuna sidoo kale qaybo badan oo kamid ah daanta galbeed oo qoonsanaya inay kamid yihiin Israa'iil saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in qorshaha Mareykanka oo Israa'iil ogolaanayo inay ku darsato 30 ilaa 40% dhulka daanta galbeed oo ay ku jirto bariga Qudus madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu la hadlo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu sidoo kale soo jeediyay in laga yaabo in gabi ahaan uu xiriirka u jaro dalka labaad ee ugu dhaqaalaha xoog badan caalamka waraysi uu siiyay telefishinka Fox ayaa Trump ku sheegay inuu aad uga nijaysan yahay guuldarrada Shiinaha ay ku xakameyn weysay faafitaanka cudurka coronavirus oo sidoo kale sheegay in iminka ay halis ku tahay heshiiska ganacsiga ee bishii Janaayo uu la gaaray Beijing carada Trump ee ka dhanka Shiinaha ayaa sidoo kale ku soo dartay madaxweyne Xi Jinping marar badan inuu sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing in joogteynta xiriirka ay dan ugu jirto labada dalba oo dadkooda ay ka faa'iideeyaan nabadda iyo xasilloonida caalamka guud ahaan taas ayaa kusoo gabagabaynaa wararkeena maanta warkan warkayga intaa kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah